رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله واتحانه أني لما قعبحي وسارعوا حلقذني وحلقذي صدحي اللباتنات هل كل جيدنا الصلاة قرة عيون المحبين وهدية الله للمؤمنين صلاة القبوسية إيا راحة ضدك الله جعل سبحانه وتعالى وانا هدية وإلهي هوذا سر أسوم لي ضدك مؤمنين تعسيوا من كانت نبينا صلى الله عليه وسلم مر الله مركو وحير وعليس دريمه إنو داوذي راديو ومضنا أشر أرحنا بها يا بلالو صلاة نوغو راحه أي النبي قوله صلى الله عليه وسلم إي والله صلاة وراحه الصحابة قيبة كميدة markii la damcay in operation iyo qalitaan ay galaan salaad bay galeen si ay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la hadlaan raaxada ay qalbigooda ka dareemayaan ayaa ilowsiisay culayska iyo lugta la jarayo yaa tora su'aashu waxay tahay qalbiga raaxada dareemaya waa qalbige wa aydan من علامته إذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلال وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال تناءى همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوال ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بالي قلبي عافمات قبه مركو ربي جل جلاله قابله الله أكبر ويلهده إلهي وحك الزوليا إلهي وحك قاضاه عليسكي قلبك كهيستي همك أدوية ده يولولك أدوية ده وحونا دريما راحة إيا إنو جنة كجرو أيها الأحبة في الله أحبكم في الله خشوعة أيامها أن قلوب تيدك الدريمي نواتبانك الضنبئي رمضاني وحاكين هي راحة قلبك محايا لي ضدكو إن بدانو كميدا إلهي بأصول نقدين وحي قروا صدين إن إلهي أصول نقدان قيب وحي قروا صدين إني دنبيدا كتغان من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب ضدكو إني توبت كانا ومن أوجب الواجبات وحاسك واجب سن إني مركه رب الدنبيدا كفوغادا نعم أيها الإخوة في الله صلاة وراحة ضدك موحدين تأه إلهي كلي عبادة أخالصة سبحانه وتعالى صلاة ودلحيس كعبادة تتك إلهي إن بدن عابدة إن بدن إلهي أخشوعة وبيرت إيا بساطين تأي كرة حيستا قلبي قوذنا أوكدوا يكسود الحيسا صلاة وحيك لصارتا رنشيقها إيمانكيسا كرن شيغيا إيا مدك منافقة لبدا أيك لصارتا نعوذ بالله تبارك وتعالى صلاة وصحيدة إيا ميزانك ضدك أكعتمية آخر يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة
addoonka waxa u horeeya ee laga tirinaya xilkiisa waa salaada weeyaan. idan salaadu waa miisaan. salaadu waa miisaan. dadka aakhira markay tagaan ayadaa camalka lagu miisaamaya. salaadu waa wixii ugu horeeyay, waxa ugu horeeyay in la waayi doono xataa adduunka markii la joogo. salaadu waa raxmad uu ilaahay geliyo kuwa guusha gacanta loo gelin doono adduun iyo aakhiraba. ilaahay baa gacanta u geliya guushaasi subxaanahu wa tacaala. waa raxmad uu ilaahay gacanta u geliyo kuwa guulaysan doona. walaalayaal, qalbigan aad arkaysaan ee in laga khushuucayo la doonayo mar walba wuxuu u ooman yahay in lagu waraabiyo biyaha iimaanka. biyaha iimaanka iyo taqwada si uusan u qallalin. waxaa tusaale u qaadataa geedka iyo ubaxa haddaan la waraabinin miyuu qoyanaanayaa? laamo miyuu yeelanayaa? caleen miyuu dhalayaa? midho miyaa laga cuni karaa? miyaa la hoos harsan karaa? fakadaalika iimaankuna waa sidaa. waa shucab iyo qaybo. iimaanka waxaa nooleeya in biyaha iimaanka lagu shubo. fahaadaa da'bu lcabdi ayaama xayaati. qofka muslimkaa 5 salaadood waxa loogu waajibeeyena waa biyihii. duhur baan tukanaynaa, intuusan qallalin qalbigu casar baa haddana biyihii casarkaa lagu shubayaa. intuusan ka qallalin haddana biyihii maqribkaa lagu shubayaa. intuusan qallalin haddana biyihii cishaha lagu shubayaa. intuusan dhalin haddana biyihii salaada subax baa lagu shubayaa. intaa waa inta waajibka ah. inta sunnada ah maxad maray? allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusta. war salaadaha ilaaliya. salaadaha 5 ilaaliya. midda casarna si goonaa u ilaaliya. maxaa laga ilaalinayaa qalbiga inuu qalalo? alghafla, cudurka iyo shayaadiinta ku wareegaysan 4 arrimood baa laga ilaalinayaa. wuxuu yidhi inni ibtuliitu biarbacin maa sullituu ilaa lishaqaawatii wacanaa'i ibliisu waddunyaa wanafsii waalhawaa kayfa alkhalaasu wakulluhum acdaa'ii. 4 baa lagu imtixaamay. waxaadna moodaa inay jannadayda i dhaafinhayaan iyo sacaadadayda iyo farxaddayda adduuniga aakhiraba. 1 waa ibliis. 2 waa adduunyada aan daba ordayno ee aan cibaadada kaga mashquulay. 3 waa naftan al-ammaara bisuu ee mar walba xumaanta noo hagta. 4 waa hawada iyo waxa ay naftu raacayso. sidee arrintaa looga bixi karaa? 4taa cadow baa kugu hareeraysan. waxaan ku soo gebagabaynayaa kuna soo gunaanidayaa lilcabdi bayna yaday illaahi mowqifayn. addoonku ilaahay hortiisa 2 xaalo 2 meer buu hor istaagi doonaa. mowqifun bayna yadayhi fi الصalaaة wa mowqifun bayna yadayhi yowma alliqaa'i. mar waa markaad rabbi hor taagan tahay ogow. marka labaadna waa maalinta qiyaamo eed rabbi hor istaagi doonto. 2daa mowqif. faman qaama bixaqi اlmowqif اlأwal, qofka xaqa hore oo salaada ah xaqiisa siiya oo salaaddii ilaaliya oo iimaankii ku ilaaliya oo ku khushuuca, mowqifka kale waa yaraanaya. mowqifka labaada aakhira waa kuu fududaanaya. waman istahaana bihada almowqif, mowqifkan hore qofka ay la fududaato oo fududaysta, midka dambana ciqaabkiisu waa ka daranaya. kamaa yaquulu ibnu qayim aljawsiya raximah ullah. axibaa'i fi illaah, uxibukum fi illaah. intaanu kaga kulmayno xalaqa aantan ahayn waxaan idinkaga tegayaa hadalka ilaahay, xaafiduu cala asalawaat. ilaaliya salaadaha waasalaati alwustaa. xusuusta arixnaa biha yaa bilaal. waa raaxo iyo sacaado oo wallaahi raaxo ka dambaynin. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.